kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalkaab media qodobada maanta ugu dooroon waxaa ka mid ah wiilkii calanka Soomaaliya ku libisnaa oo la hor keenay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa nin doonaya inuu isku qarxiyo munaasabad ay lahaayeen ahlu sunna oo guriceel lagu qabtay dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay gantaal lagu gamay magaalada Makka Somaliland oo ka hadashay sharciga shidaalka ee uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo magaalada Hargeysa wararkan ku helay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Aar la horgeeyay maxkamadda ku taala magaalada Hargeysa ee gobolka Madoorajaax Cabdiraxmaan Aar ayaa ciidamada Soomaaliland 14 bishan May ka soo qabtay bartamaha magaalada Hargeysa isagoo ku libisnaa dharka calanka Soomaaliya maxkamadda gobolka Madoorajaax ayaa saaki markii la horgeeyay Cabdiraxmaan Aar waxay sheegtay eedii loo haystay iyadoo dib ugu jirtay 7 cisho Roomaan ah Cabdiraxmaan Aar ayaa waxa la filayaa in dib maxkamadda gobolka Madoorajaax lagu soo celiyo muddada toddobaadka markuu soo dhameysto wiilkan loo haysto in uu ku libisnaa dharka calanka Soomaaliya ee saaka maxkamadda la horgeeyay ayaa wax waxa gudoomiyaha ururka dhalinyarada ka wacyigeliya dhibaatada qabyaaladda oo lagu magacaabo ururka qabyaalad diidka Somaliland ayaa waxay inta badan dagaal xoogan kula jirtaa waxyaabaha dib u dhac u keeni kara qarannimada Somaliland ay doonayso wiilkan ku libisnaa calanka dharka Soomaaliya ayaa ciidamada booliiska Somaliland waxay ka qabteen bartamaha magaalada Hargeysa iyagoo ku eedeeyay inuu ku libisnaa dharka calanka Soomaaliya taasina ay suurtagal ahayn sida ay sheegeen wararka ka imaanaya degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada ammaanka maamulkaas ay qabteen nin doonaya inuu isqarxiyo ciidamada Galmudug ayaa munaasabad lagu xuseeyay askarta ahlu sunna ugu dhimantay dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab ku qabanayay magaalada Guriceel xilliga ninkaasi la qabanayay waxaa kulanka ku sugnaa madaxa ugu sareeya al-sunna sida Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax gudoomiyaha guud ee al-sunna madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Cabdirasaaq Maxamed Mire ninkan ayaa la sheegay inuu ka soo gudbay baaritaanka waxaana ninkan uu soo galay hoolkii ay fadhiyeen madaxda al-sunna iskuna dayay inuu isqarxiyo balse ay u qarxi weyday sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ah nin orday oo waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa laga qabtay mar uu ku dhamaaday goob madaxda gaariga ay ka raacayeen kadib markii munaasabada shahaadada ay soo ilaatay askarigii naftiisa huray ayaa ku booday ninkii doonayay inuu isku qarxiyo ayuu yiri sargaal ka tirsanaa ciidamada Galmudug warar ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee al-sunna ay ninkan ka fureen jaakadii qaraxa ugu xirnaa isagoo laga soo saaray goobtii uu doonayay inuu isku qarxiyo sawir laga soo qaaday ninka oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay in ciidamada al-sunna oo ninkan ku hareeraysanaa isla markaana gacmaha iyo lugaha ka xiray al-sunna ayaa sanad walba 17 bisha Ramadaan waxay qabtaan munaasabad ay ugu magacdareen maalinta shuhaadada oo ay ku xusaan dagaalyahanadii ugu geeriyoodeen dagaalkii ay la galeen dagaalamayaasha al-shabaab 10 sano ka hor xukuumadda Soomaaliya ayaa si kulul u cambaaraysay gantaal la sheegay in kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ay ku rideen dhanka magaalada Makka al-Mukarrama qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri xukuumadda Soomaaliya waxay cadeynaysaa in beegsiga aqalka Allah ee xurmada leh uu yahay mid aan la aqbali karin waxayna u aragtaa faldambiyeed gantaalka lagu soo tuuray qoraalka ayaa intaasi ku daray Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay bogaadinaysaa ciidamada difaaca cirka ee Sacuudiga oo ka hortagay labada gantaal maalintii Isniinta 20 May kan koowaad waxaa lagu qarxiyay hawada magaalada Daa'if kuna jeesnaa magaalada Makka halka kan kalena lagu burburiyay samada magaalada Jidda kooxda xuutiyiinta ayaa beenisay eedeymaha Sacuudiga oo ahaa inay gantaal ku soo rideen magaalada barakeysan ee Makka siyahayaha danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobe oo sheegay in Soomaaliya ay wajahayso caqabado badan siyahayaha danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobe oo ka hadlayay kulankii ku saabsanaa xaaladda Soomaaliya ayaa waxa uu yiri way caddahay in Soomaaliya ay wajahayso caqabado badan oo ku horgudban dagaalada ku aadan hagaajinta amniga
wuxuuna ku baaqay in la dedejiyo islamarkaana si mas-uuliyad leh looga shaqeeyo sidii ay u dhici lahayd la wareegidda mas-uuliyadda amniga ciidamada Soomaaliya kadib bixitaanka AMISOM. Arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya loogu fadhiyo inay dhamaystirto shuruudaha doorashooyinka islamarkaana wada shaqeyn wanaagsan ay la yeelato dowladaha AMISOM iyo UNISOM si loo sugo amniga codbixiyaha. mudane madaxweynaha arrimaha dib u eegista dastuurka waxaan xaqiijinaynaa in helitaanka xasiloonida siyaasadeed oo waarta ay ku xiran marka la qeexo isla markaana la cadeeyo mas'uuliyadaha iyo awoodaha dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada dhammaan dhinacyadu wuxuu ku boorinayaa inay wada shaqeeyaan si arrintan loogu gudbo. xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay sharciga batroolka ee dhawaan ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyadoona ay sheegtay in sharcigaasi uusan sinaba u quseyn maamulkaasi. wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal oo ka hadlay arrintaasi ayaa wuxuu sheegay in sharcigaasi uu yahay mid lagu carqabadeynayo Soomaaliland oo ay u arkaan dagaal dhaqaale. wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay markasta caqabad ku tahay horumarka Soomaaliland isagoo sheegay in sharcigaasi uusan wax saameyn ku yeelan doonin shidaalka batroolka ee maamulkooda. wasiirka ayaa wuxuu ugu dambeyntii sheegay in hay'adda batroolka Soomaaliya ee lagu dhisayo xeerkaasi ay Soomaaliland waxba ugu jirin isagoona ka dhawaajiyay in marka hore koonfurta Soomaaliya ay samaysato wax ay ku dhan yihiin. sharciga batroolka ee Soomaaliland ayaa iska fogeeyay iyadoo mar hore ay muran badan ka keeneen maamul goboleedyada ka jira dalka kuwaasi oo si cad uga hor yimid sharciga ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.